السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قالي عن جعله أكو حرن جنال كيف فرتون هابي كسر بعض قلب فريني سافيسيتي في عندي عفمات كينا سؤالها وحليسو ودي قليل كحنونيها أو كانوا قبل حدا أبا مركي وهري سواي عادة أو حنوس القلينكا قف وحود عاي أبايو عنقي سدحاد لكن حنونيدي أو لبدا المهر مركي اللي وقلاي حنون كان سدحاد أيا كحنون بدن مركو ضد بدن وحي صودهن والله أنا وحي أركي أني الشر قرينا أنا أسكو من نحني أنا كل دوّن نحني أنت صباح وأركينا إن شاء الله دولاي كرال نقضى تذيك لا وحوا هرتا هرساني وشيء دلتان كعادي قلينك حنون بدن إن كستا أو قلينك أنا مركا أد سيدا هذا أنا أسوس ميو كلا أتسميسيد حنون كويرانا يا oo aad ila sanad ama sanad ii bar ma xanuunsananaysid laakiin sida dad qaar ay sameeyaan oo kale oo dad badan aan aqaano sida sameeyaan oo kale wax xanuuna dareemaysa xanuun badan mareysa so anyway waa guda galeena ana horta qalinkay koowaad ma ahan waa qalinkii labaad li uu qalaayo so labada qalin hal baby u dhaxeeyna caadi u dhalay alxamdulillah soo marka dad qaarna waxay aaminsan mar hada qaliin uu bilaabay noloshaada in qaliin la ku dhameysanaysad soo saas ma ahan wax walba waa qadar ilaahay haduu ku qoro in qaliin ku dhashid waa gooni next time ka baby kale ilaahay haduu ku qoro in caadi u dhashidna waa u dhalaysaa soo ma fahanteen marka okay maanta waxaan rabaa inaan meeshaas niiga sheego aniga babydeeda koowaad aad u yaraa horta qof yariisaan ahay alxamdulillah ciladaas oo markaas lagu qalno waxayd aad u weyneed ayada kg-geeda u weynaay 5 kiilo ahayd Soomaaliyaana joogay xanaano ali u qal xanaano dadka yaqaano Turkiga xiligaas ka shaqeynaysa xanaano waa saxana sax waa ka saxana xanaano waa Turkiga ka shaqeynaysay waxay ahaydna wallahi xanuunyadii hadda marka Uweymir li u qalay aan dareemay gabadheeda nadiifo maanan dareemin xanuunyadaas oo markaas ma yaraay ma ilooway I don't know waayo waxa ka soo wareegatay almost wax badan qalinkii koowaad iyo qalinkan u dhaxeeyay 2012 bishii 12aad 12deeda aan qalin xiligaas li u qalay ku dhalay babydeeda okay maxaa ka soo wareegatay 2013 ma wax badan ka soo wareegatay soomaa gabadheeda sanadkay jirta uga arbtiin walaalay anyway hadaba ogaateen almost ilaahan oo dhaafo wadka ilaahan oo barakeeyo soo wax badan ka soo wareegatay qalinkeyga fahanteen wax badan ka soo wareegatay wax badan markay gabadheeda sanad iyo 8 bilood jirtay wiilkeyga maxamed amiin ayaa uurkiisa yeeshtay marka yeeshtay caadiya u dhal maxamed amiin qaliin ina haya isku maleynayay kiilaadkiisa uu weynaay laakiin qaliin muusan noqoni dhakhtarkii dhakhtar xasan uu ahaay oo mar waliba niyadii dhis jiro oo ii sheegay in caadi ku dhali karo wuxuu dhahay xiligaas aadaleysay waxa la yaabaa waa yareedu dhahay qof yara ahayd soo in markaan kale xataa soo waa yara laakiin just wuxuu igu dhahay cilad lagu qalay animation uu jeedo dhahay dadka sida dumarka caadi dhali kara tahay laakiin anyway xiligaas ay inay ku qornad ka soo qaadno waayo dhakhtarka nin muslim waaye miska sheegay kar wax kale laakiin qadartu aaminsan Soomahan anaga dhan muslim hadaan ilaahay qadartiisa aaminsanaan marka wuxuu dhahay qadaray ahayd laakiin hada caadi oo dhalaysa insha Allah oo dhahay waana runtii caadi aan u dhalay soo markaas xanuunyad ma aqaani ma sheegi kari gabadheeda xanuunyadii ma marin xanuuna oo maleynaya waayo hooyadii umashii bixisay guri hooyadii ku noolaay alxamdulillah ilaaha ma hada iskale wallahi babydeeda waa haystay sida hada hoosh u qabanay wallahi umul anoo ku jiro xasuusta in aan marti casuumay in oo familkeena familka mid ee ka soo guuray Saudi Arabia wax badan qabanayo hoola arkay ma qaan wallahi anyway ani wax waa qabanay horta qof jiifta maan ahayn waligeena dadka hoos jecelahay marka xaamilada ay marka dhalaba hool waa qaban jiray حتى سيدا هذا عمير أو أهاي
لا هاي هو إذا أمول إيجا بحناس أي أكجيفته والله مرنا مدرسين جرين إن أنا سوق عجري وقدت كوردف وهاي عنق أنا ناسي سنجري حفاظ أنا وحي أرك جرت كبدلي أنا ناسي أنا ودقدقي أنا وحول بقبسنا هو إذا أرك جرت مركو عادي جرت هذا محلقة عامنا عملي دي جرتي سو أنا والد كيجا وانجعل هاي أدي هذا وجعل هاي أنا وهرت فضهاي حنون مركا ولاي وحيرة أنا ما حسوست هذه جست لك عوامر حنون كيس حسوستا حنون ما لقيه كرو إلا هذا نكتة ذيك قيلونه ساعة لكن قبل هذا حنون ما حسوستي وحاليا وإنه إلهي مركز إيه سقير إنا يراي وجركي هذا نوحة هاي عاطو إيماجين والله مركا دلا هذا وكشة كان هذا سبحان الله ضدك قارك وذي حدي جرين قبل عن ما يصندل عنقان هو يدي سآبي بيبيده هو يسمع لمتى قفك هاي سهبرت اسمي اللي جمس إيدي سواي سو هو يدي أنا هاي من اللي ملينين إنه هو يدا هاي سو مركا الحمد لله إلهي ما هاد أسوقناتي حنون كسم حسوسين كري لكن جستو حاملينا إن أنا حنون أنا دريمين وافعنا لكن فوش قبل إذا إلا هذا ماني إلوين هذا وفوشتي سديد بردنا فولنا ما أنت سديد هذا عادي اللي قلي oo marka xanuun soo wad ani dhan wada bararay meela qabsaday meela fadhiistay la kasi waayay aan leeqalay markaas waxa lagu dhahay halaan ka badan ma sugi karno markaas leeqalay laakiin wiilkayga xanuunka asagane gabadheeda maray amal ayaa maray laakiin amiin xanuuna maray gabadheeda nadiifana xanuuna maray gabadheeda laba magac ay qabtaa نظيفة والله سمية والله I hope إن داوني صدقوا هل مجانا أشياء جديدة نهاي مجانا أنا أقول بهاي مجانا وحاول بحي فملكا عبيديو صا مركا سمية عدي نظيفة عدي لبض بعضها هاي مداني قبل تعجع لهاي مجانا قناع سنتا مركي ويناتو ولا أركضونا إن شاء الله أدو إلهي كران لقد لك anyway لبض إذا مجانا وإنا أنت كحسا حاليا فيديو إن داوتا مي أركتو أوكي مركا قبل إذا نظيفة عدي والله حنون كذا وحاسيتي وحاواي محسوستي ويلكيغا امين سيدو كله ادي فوشا لكرفاده لكن عادي او دله الحمد لله حنون ما دريمين ومش ولا حنون ما كدريمين فوشي سلا حنون دريمي ومشنا ما شاء الله كليغا اهاي غور كليغا كنولا ومشنا انا اسك بخياي gabadheedan umash hooyadii ila nooleed saahoran igu sheegay amin cuweymira isoo haray wiilkayga saddexaad cuweymir cadab umash waxa iga bixinaa cabsalaan laakiin laasiman aniga hooyada ahay aniga waxyaalaha qaar qabsanay aniga ka caayay aniga qabnay waa ogtihiin ninkaad umul ka bixin karaa laakiin sida oo hadda oo gabar markay ku joogto ama walaasha umul ka bixinays in ninkaad same maahin ninkaad cuntada haduu kariyo waa una xiisaa waa jeceshahay waa daaleysa inuu hoosh aqooni oo nin oo yahay oo loogu talagalin waa ogtaa Soomaan laakiin walaasha hoosh way taqaana hool waliba way qabanaysaa wixii iloobis wixii yeelaysa malahan dabcan saasi aaminsan intii la aaminsan soo marka qeyr ilaaha siiyo cabsalaana umushi iga bixinaayay ay caabinaayay xanuunka aan dareemay xanuun ma la dhihi karo wallahi aad xanuun u dareemay isbitaalka markaa ku jiray oo leeqalay sikin ayaa waxa lagu duraayay cirbid 3 mar mise 4 mar waxa laga duraayay cajarada soo heer waxa gaaray ilaa cuweymir markuu 4 bilood mise 5 bilood oo jira xataa daawada cajarahayga way fadhiyeen xanuun ay qabanayo waa lagu duraaya xanuun ay qabanayo waa lagu duraaya xanuunka hada maanta oo quraacdo kadib xanuun ay qabanayo hore laga duraayo cuweymir horta fooshiis xanuun badan ma arkin laakiin risanka abaa lagu qalin xawaa gabdho badan dhaheen wadna garaaciisa laciif noqdo wiilkayga biyahana uu ka dhamaaday waayo guriga ayaa 3 maalin biyo iiga socday anigana maana sheeganin wax easy aan ka dhigtay waxina hada ku qoranya oo kugu dhacaayana waa sidaas oo kale marka waxa la cunuga biyihina uu ka dhamaaday teemka ku foolanaysayna uu ku dhamaaday soo marka mid in loo qalaway maadaana horena operation u martay waxa noo fudud maanta in operation ku sameeyno anaga ani cabsalaan ilaa tala saaranay odigayga labarka cuudukaday soo caloosho iiga tufay qalinka sida ku galay falillahi alhamdu waa ka saacweymir nabad qabo ilaahay si alxamdulillah soo laakiin xanuuniya badan dareemay soo marka isbitaalka soo baxay oo guriga laakiin waxa lagu dhahay maanta cirbad ku eg tahay daaw kaniiniyada lagu soo qoray kaniiniyada maxaa cuni jiray maxaa ka gal xanuunka soo iigarasta jirkayga markuu oo kaniiniga ka baxo xanuun ay qabanayo hool ma qaban kari cunuga xataa dhabta waa saari waaye naas waa sii waaye xanuunkii qabanay marar qaar kooda
ootina ay qabanaysa laakiin ma ooyin kartid xanuun subxaan allah ma sheegi kari laakiin xanuun too much Cuwaymir dareemay gabadheeda xanuunkaas maan dareemin marka lagu qalay operationkaas wiilkay Amiin horta ma sheegi kar waayo caadi u dhalay xanuun maana dareemin alxamdulillah awlaad ilaahay dhaafo ilaahna ay baraka inta aysan awlaad baar oo saalixiin ilaahay allahumma amiin waxa ii soo haray Cuwaymir ma sha Allah ilaaha dhaafo laakiin xanuun badan aan maray Cuwaymir waxa rajeenayaan xanuunyadaas hadda waa ka kabsaday bishaan hadda lagu jiro ayaa caafimaad dareemay miyaaminaysiin sida u dhalay ilaa hadda Cuwaymir aad baa u xanuunsanaa waayo meesha qalinka ay xanuunaysay hoola si qabanayay horta hoosha aan qabanay way caabisay midaas number 2 gabdho hoosha qabanay waxa ii caabisay waxay ahayd xanuunyada iga yaraaday oo waxa iga yaraatay meesha qalinka zaadka xanuunas irida la soo garaacayo karaan noqdo way iga yaraatay waxa kale oo ii fiicnaa xitaa marka hoosha baga ay xanuun dareemi jiray dhaqtaradeeda u tagay daraadow soo marka waxay ugu dhacday meesha horta aad iyo aad ku ureysato dadka qaar saama u ureysato maxaa qabata hoola qabanayo kula shaqaalimi u joogto okay waa fiicantay dhahday waayo caloosh waxay leedahay murqi hada ka shaqeysiis waa okay shaqada badan cayilku way iga ilaalisa caloosha ina faad badan ku yeelanin way iga caawisay waayo caloosha maana xirin operation ina xirwale diiday laakiin hoosha badan marka qabtay oo calooshii shaqo ku qabtay iyo waxaan gashan jiray wax yar oo hal taay oo zaaid aan taay u ahayn gashan jiray taasna way iga caawisay in caloosheeda dhalin hilib ama cadiin dhalay caloosh iga weynaanin taas way iga caawisay waxa kale oo caabi marka dhaqtarada waxay igu soo sheegtay kaliya in aan nasto bishaan daawooyin ay soo qorto aad u fara badan ada xanuunye igu soo sheegtay marib xanuunyadaas inaan ka sheego anyway laka xanuunsa soo darameen laka alxamdulillah xanuunkaas ku qabtay ku hay xanuun ada cudur maaha laakiin xanuunye ay qabtay oo soo marka waxa daawooyinka isticmaal soo caafimaadaysa marka caafimaadina soo laabo marka daawooyinka isticmaal alxamdulillah marka laabtayna waxa lagu soo sheegay malahan meelihi waa irastaan anyway soo marka xanuun aad dareentay too much dhaqtaradaada soo ani xanuunkaygu kala joogsan waaye markaas dhaqtarada aastay waayo marka dhal ilaa had xanuun sa isku dhaay meesha qalinka waa isku dhaay waxaana la sheegay 6 bilood kadib inaad tahay meesha qalinka ka fiicnaanaysid laakiin maana fiicnaan laakiin alxamdulillah wuxuu ilaahay keenay waa gooni laakiin anyway hadda waa fiicana caafimaadna waa qabaa laakiin xanuun uu ku qabanaya meesha qalinka laakiin markaad hoosha badan qabatid hool zaad badan qabanin rutmashadaada iyo badanin laakiin taagnaashadaada iyo jiif inaad taagnaasho hool ka qabatid oo cunto taagnaasho karisid waa okay taas aan wax badan iga caawisay ma fadhiisan jirin waa jiifi jiray marka oo baga waa seexanaay marka saas labadaas sameyn jiray adi fadhiga iska ilaali shay caanahan waa iska ilaalin jiray inta badan ma caabi jirin xanuunyada say iga yaraadeen alxamdulillah marka insha Allah waxaan rajeynayaa in videogan ka hesheen wixii su'aalo ama fikrad xaq hoos igu soo qoro inta xaamil aan ilaaha u fududeey inta awlaad haysatan awlaad baar ilaa u dhig anagana awlaadeena baar Allah noo dhig Allahumma amiin meel walba awlaad joogtan ilaaha noogu amaansad ilaahna noogu xifdi Allahumma amiin inta awlaad haysanin ilaahay awlaad baar oo saalixiin ilaaha si Allahumma amiin inta awlaad ka saqiirteen awlaad badal qeyr qabo oo fiican ilaahay hasiyo وكاسا فيديوغين انت سوكويغا انت حامل اي فوش الهو فضيو وكاسا انت قور ربتن قور بركيسان او خير قب الهو سيو فيديوغين انت سوكويغا والدين تن امتي الهو نحرست انت نولي الهي هنون دافو وكاسا مصيبي بلاي شري شيدان الهو كمغان قلني فيديوغين انت سوكويغا وحي فكرة دادا اما كومنتي حق هوسكم تي يوصوريب